jiilka wax akhriya maanta waa jiilka beri hogaamin doona ummadaha. أمل تألق وارتقى مثل النجوم محلقا. assalaamu calaykum, waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ku soo dhowow wadada guusha. magacaygu waa Yuusuf Sakeen. su'aal: ma jiraan wadooyin aynu ku awoodi karno in aynu duruusteena ku xifdino, in buug kasto aynu akhrino u fahanno sida ugu wanaagsan, si aynu imtixaanka uga keeno natiijada ugu sareysa? jawaabtu waxay tahay nasiib wanaag. noloshayda oo dhan waxaan ku qaatay waxbarasho. yaraanteedii ilaa ay haddadan la joogo waxbarasho un baan ku jiray. waxbarashaduna ma ahan mid dhammaanaysa intiiba uu qofka uu nool yahay. hadda haddii aad weydiisid ayuu muxuu yahay saaxiibkaaga ugu dhow uguna wanaagsan, dabcan marka laga reebo saaxiibkayga koowaad ee number 1 ah mar walba mataanteeda nolosha, waa buugga. buugga waa saaxiibka aan ugu jeclahay. sababtu waxay tahay buugga wuxuu ku siiyaa waqtigiisa oo dhan. buugga waa saaxiibka aan marnaba kaa daalin, marna lagama yaabo inuu kaa caajiso. saa darteeda buugga wuxuu kuu furayaa fikrado aan marnaba laga yaabi lahayn inay kugu soo dhacaan. qofka badiya wax akhriska wuxuu damaano qaaday guushiisa. qofka badiya wax akhriska wuxuu noqonayaa qofka loo soo raadsado xikmadaha. wuxuu noqonayaa qof saaxiibadii oo dhan ay u raadsadaan inuu u xalliyo mushkiladahooda. qofka wax akhriya wuxuu noqonayaa qof fahansan nolosha. buugga wuxuu ku geynayaa magaalooyin aadan weligaaga tegi lahayn. buugga wuxuu kuu soo koobayaa taariikhda dadkii hore iyo waxyaabihii ay mareen. buugga waa saaxiibka keliya ee la hubo inaad mar walba wax ka faa'iidaysid. buugga waa wehelka guusha, waayo wuxuu kuu soo koobayaa oo ku tusayaa wadooyinkii ay dadka kale ku guulaysteen. adigana wadooyinka ayaad maraysaa. wuxuuna ku barayaa sidoo kale meelihii ay ku fashilmeen, waadna ka fogaanaysaa. hadda haddii aad weydiisid oo aad igu dhahdid ayuu waxaad isiisaa hal nasteexo oo aan qaato noloshayda oo dhan, shaki la-aan waxaan ku dhihi lahaa badi wax akhriska. haddaba ardaynimadeydii iyo wax akhriskaygii badnaa wuxuu i baray inay jiraan 5 qaab oo wax akhris ah. haddii aad 5taas qaab waxaad u akhrisid, waxaad noqonaysaa ardayga koowaad ee fasalkaaga. haddii aad dhiganaysid jaamacad, ama haddii aad dhiganaysid dugsi sare ama dugsi hoose, wax walbood baranaysid, waxaad noqonaysaa ardayga koowaad ee fasalkaaga. haddaba 5tan qaab ee wax akhriska waa inaad nafsadaada ku dabaqda oo aad samaysid. marka aad qaadatid oo aad sidaas samaysidna waxaad damaano qaaday guushaada. hadda waan ku maqlayaa waxaad i leedahay ayuub ii sheeg maxay yihiin 5tan qaab ee wax akhriska ee ii damaano qaadaya guushayda, ee ii damaano qaadaya darajada ugu sareysa. haddaba 5tan qaab waa: 1. wax akhris dulmar. wax akhriska ugu horeeya ee loo baahan yahay inaad samaysid waa wax akhris dulmar. wax akhris dulmar waxaa ugu bixiyay waxay tahay marka aad buugga akhrinaysid inaad u akhrisid si dulmar ah. marka hore waxaad ka bilaabaysaa buugga contentiga, fahraska, mawduucyada uu buuggaasi uu ku saabsan yahay. somaa meesha aad ka bilaabaysaa ayaga ayaad akhrinaysaa. marka hore waad dulmaraysaa, kadibna mawduucyada ayaad mid mid u dulmaraysaa. waxaad u akhrinaysaa si boobsiis ah. hadda adiga hadafkaagu waa dulmarid. waad dulmaraysaa, waa boobsiinaysaa, waa akhrinaysaa, waa akhrinaysaa, waa akhrinaysaa ilaa aad ka dhamaysid. ha ku mashquulin ereyada aadan garanaynin. ha ku mashquulin waxyaabaha aadan fahmaynin. hadda muhiimadaadu ma ahan adiga inaad fahantid. muhiimadaadu waxay tahay dulmar. wax akhris dulmar. marka hore sidaas ku samee buugga oo dhan. tallaabada labaad: wax akhris degan. hadda waxaad wax u akhrinaysaa si degan. markii hore waxay ahayd boobsiis, soo ma ahan? waad boobsisay buuggii, waad dhamaysay, uma aadan istaagin waxyaaba aadan garanaynin. hadda waa wax akhris degan. kuma soconaysid xawaarihii aad markii hore aad ku socotay. sidoo kale deganaansho oo deganaana ma ahan, tartiib zaa'ida ma ahan. hadda waxaad u akhrinaysaa si degan oo laakiin aanan ahayn tartiib, aanan ahayn boobsiis badan aanan ahayn ayaad u akhrinaysaa. waad dulmaraysaa mawduucyadii ayaad dulmaraysaa. sidoo kale kuma hakanaysid in badan waxyaabaha aadan fahmaynin. isha unbaad si hadda waxaad u gelinaysaa qoto dheer, xoogaa fahan, sidii hore ka baxsan ayaad rabtaa inaad u fahantid. waa si degan oo laakiin aanan tartiib aan ahayn. haddaba qaabka labaad ee wax u akhrinaysid wuxuu yahay wax akhris degan. buugga ayaad soo qaadaysaa, sidaas ayaad u akhrinaysaa si degan oo tartiib zaa'idna aan ahayn ayaad u akhrinaysaa. saas ayaad u akhrinaysaa, saas ayaad u akhrinaysaa ilaa aad ka dhamaysid. tallaabada 3: wax akhris
fahan. Hadda adiga hadafkaagu wuxuu yahay inaad fahantid waxyaabaad akhrinaysid. Waxaa muhiim ah qaybtan inaad soo qaadatid qalin oo highlight ah aad soo qaadatid. Hadda fahankaaga waxaad diiradda saaraysaa fikradaha ugu muhiimsan. Markii hore maxaynu sameynay wax akhris dulmar, kaas wuxuu ahaa dulmarisi. Markii labaad wax akhris degan, xogaa kii hore uu ka deganaa, laakiin sidoo kale muhiimadda ma saaraynin in badan fahan qoto dheer Soomaa. Hadda laakiin waxaa la gaaray fahan. Hadda waxaad diiradda saartaa in badan sidii aad ku fahmi lahayd waxyaabaad akhrinaysid. Waxaad adeegsanaysaa qalinka adiga oo ku calaamadeynaya meel kastoo is leedahay meeshan waa muhiim. Marka macalinka ama professorka uu ku akhrinayay jaamacadda ama iskuulka meel walba uu ku akhrinayay waxaa jiray fikrado uu akhrinayay Soomaa. Hadda fikradii ugu muhiimsan ee fasalka aad ku soo qaadatay ee aad calaamadeynaysaa. Waxaad isku dayaysaa inaad si fiican u fahantid. Qaybta saddexaad waa qaybta ugu muhiimsan. Sababtoo hadda waxaad doonaysaa inaad si fiican u fahantid waxa aad akhrinaysid oona weliba calaamadaysid meelaha ugu muhiimsan ee is leedahay meelahan imtixaanka wuu ku imaan karaa. qaybta afaraad wax akhris xifdis. Hadda waxaa la gaaray qaybtii aad jecleed Soomaan. waxaad jeceshahay inaad wax xifdisid ya anigu waan nacabahay weligeena waan nacabaa inaan wax xifdiyo runtii. haddaba haddii aad tahay qof jecel wax xifdiska hadda waxaa la gaaray qaybtaada ayaa la gaaray. hadda waxaad u akhrinaysaa inaad xifdisid, laakiin seed u akhrinaysaa? maxaad xifdinaysaa? hadda waxaad xifdinaysaa waxyaabihii aad qaybtii saddexaad ku calaamadaysay. soo jeedid maxaynu nidhi wax akhris fahan. hadda intii markii aad ku jirtay qaybtaas saddexaad ee wax akhriska ee aad fahanka ku dhex jirtay, intii muhiimka ahaa ee as lahayd kuwan imtixaanka wuu ku imaan karaa ee aad calaamadaysay ayaad diiradda ha ku walbahaarin in badan inaad wax walba aad xifdisid. may muhiim maaha wax walba inaad xifdisid. waayo waxaaba kugu filan wax akhris dulmar, waxaa kugu filan wax akhris degan. laba qaab oo kale ayaad wax u akhrisay, saddex qaab wax akhris fahan. hadda uma baahanid inaad xifdisid wax walba, balse waxaad xifdinaysaa inta ugu muhiimsan. intii aad calaamadaysay unbaad xifdinaysaa, iska daa waxyaabaha kale. laakiin fikrad walba aad markaad ku jirtay marxaladii ahayd wax akhris fahan aad calaamadaysay, midaas ayaad xifdinaysaa. xifdi korka xifdi. hadda fikradahaas gaagaaban ee aad calaamadaysay si fiican hadda u xifdi. marxaladan aad ayay muhiim u tahay. marxaladda ugu dambeysa ee shanaad waa marxaladda aan ku magacaabay wax akhris ku celis. marxaladan waa marxaladda ugu dambeysa. saa darteeda hadda waxaynu sameynaynaa ku celis, muraajaca ayaynu sameynaa, review ayaan ku sameynaa waxyaabihii aynu akhrinay oo dhan. afartii marxaladood aynu soo sameynay wax akhris dulmar, wax akhris degan, wax akhris fahan, wax akhris xifdin. hadda waxaa la gaaray wax akhris ku celis. hadda waynu ku celinaynaa marka. waxaynu ugu celinaynaa waxay tahay waxaynu tijaabinaynaa, waynu fiirinaynaa waxaynu xifdin, waxaynu ka fahanay casharkaas, waxaynu ka fahanay buuggaasi. hadda kan waa tijaabo kan hadda oo aad ku tijaabinaysid aqoontaada, oo aad ku tijaabinaysid fahankaaga, oo aad ku tijaabinaysid wixii aad akhrisay oo intaan marxaladood aad gelisay. waxaan hubaa markaad marxaladan soo gaartid oo aad ku celisid in buuggaasi aadan mar dambe u baahnaan doonin inaad akhrisid. haddaba shantan qaab baroge maxaad khasaaraysaa adiga? waxba Soomaa. haddaba baroge haddii aad barogeysid oodna u samaysid sidii hadda aan kuu sheegay, oo aad marka hore dulmar aad ku samaysid buugga oo dhan, cinaawiinta oo dhan waxyaaba buugga ka kooban yahay aad dulmartid, kadibna u akhrisid si degan, kadibna u akhrisid si fahan ah inaad fahantid waxyaabaha ugu muhiimsan oona calaamadaysid, kadibna aad xifdisid intii aad fahantay, intii aad istiri kuwan waa muhiim aad xifdisid, kadibna aad ku samaysid buugga oo dhan ku celis. marka aad shantan qaab waxaad u akhrisid waxaad damaanad qaaday guushaada. waxaadna noqonaysaa ardayga koowaad ee fasalkaaga. markaasna igu soo laabo si aad igu hambaliyeysid oona kugu hambaliyeeyo. sidaas maaha. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan ku qabo like, la wadaag walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan duruustan qayimka ee muhiimka ah, si ay uga faa'iidaystaan noloshooda ugu dabaqaan oona u guulaystaan. intiiba aad dadka kale guusha la jeceshahay, intiiba aad guusha u dhowaatid. sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay maxaad sugaysaa? nala saaxiib oona ku qabo channelkeena subscribe. waxaan ku arki doonaa goordhow adiga oo guusha gaar. aad ayaad u mahadsantahay. كن ثابتا كن راسخا مثل الجبال